ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgal qaatay in ka badan 48 saacadood waxa ay ka fuliyeen deegaanka Muuse Xaaji Bangeeni Araare iyo deegaanka Bandarjadiid oo kaabiga ku haya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ayaa la wareegay guud ahaan deegaanada hoostaga degmada Jamaame iyagoona burburiyay saldhigyo halkaasi ay ku lahaayeen argagixisada Al-Shabaab. waxaana ciidamadu ay baaritaano ay ku sameeyeen guri ka guri deegaanada ay la wareegeen iyadoona howlgalka lagu soo qabtay horjoogyaal ka tirsan argagixisada Al-Shabaab. taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Cadow Maxamed Sahal oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay howlgalkaani. aan howlo operation aan ka fulinay nawaaxigan oo aan ku guureysanay muddo 7 ayaan joognay. aad iyo aad bay howlgaladana u noqdeen kuwa lagu guureystay kontroolka ciidanka iyo sugidda amnigana waxay ahayd mid 100% ah oo aad iyo aad aan ugu faraxnay. waxaan ammaan u jeedinayaa taliyayaasha ururada furunta hore oo waajibaadkooda si fiican u gutay. kormeerkaanagina wuxuu noqday mid guul ah buu noqday oo ayadoo lagu jiro xilli siyaasadeed iyo dhaqaaq cadow oo badan oo Al-Shabaab ah yaa waxaan u nimid inaan Al-Shabaab ka fashilino operation iyo howlgalna aan fulino aan ku guuleysanay. sidaa darteed saraakiishaasaan u hambalyeynaya ciidankan u hambalyeynaya waajibaadka sida fiican u guteen. taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada lagu baaxsanayo argagixisada Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya deegaanada iyo degmooyinka gobolka Jubbada Hoose.